madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qalabka sida waxa uu ku amray in heegan la geliyo ciidamada Ruushka ee u tababaran nuclearka xilli ay sii xoogaysanayso xiisada kala dhaxaysa wadamada reer galbeedka ee ka dhalatay duulaanka dawladdiisu ay ku qaaday dalka Ukraine. madaxweynaha oo ka hadlayay kulan uu la qaatay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkiisa ayuu dalalka ku bahoobay gaashaanbuurta NATO waxa uu ku eedeeyay in ay sameynayaan sida uu yiri ficilo gardarro ah ayna dalkiisa ku soo rogayaan cunaqabateeno dhaqaale oo aad u adag. aad arkaysaan wadamada reer galbeedku kaliya ma sameynayaan ficilo ka dhana saaxiibtinimada oo ay la eeganayaan dalka iyaga iyo dhaqaalihiisaba. waxa aan ka hadlayo waxa ay tahay cunaqabateynta sharci darrada ah ee dhan kasta iyo qof kasta oo inaga nagamida lagu soo rogay. mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah hoggaanka sare ee NATO ayaa sameynaya ficilo gardarro ah oo liddi ku ah dalkeena ayuu yiri madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. si jawaab adag looga bixiyo tallaabooyinka adag ay qaadayaan reer galbeedku waxa uu madaxweynuhu ku amray wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidamada qalabka sida in ay qidad ciidan oo gaar ah u dejiyaan ciidankooda heegana la geliyo istiraatiijiyada gantaalada ah ee Moscow. waxa aan amrayaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qalabka sida inay heegan buuxa geliyaan nidaamka nuclearka ee dawladda Ruushka waajibaadkoodana aad u dirtaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalkeena ayuu mar kale yiri madaxweyne Vladimir Putin. amarka madaxweyne Putin ayaa sii hurin kara xiisada kala dhaxaysa dalalka NATO isla markaana uu sare u qaadayo khatarta ah in xiisadan ay horseedaan isticmaalka iyo adeegsiga hubka waxgumaada ee nuclearka. khabaradu waxay sheegayaan in dhinacyadu ay fahamsan yihiin halista ay dunida u keeni karto haddii la adeegsado hubkan isla markaana aanay xilligan ku degdegi doonin isticmaalkiisa. khabarada ayaa sidoo kale ku waramaya in madaxweyne Vladimir Putin uu ka careysan yahay hubka ay dalalkaasi qaybtood siinayaan Ukraine si ay isaga caabiso duulaankiisa. duulaanka Moscow ee ku qaaday Kiev ayaa waxa uu ka soconayaa dalka Ukraine iyada oo meelaha qaarkoodna ay ciidamada Ruushka kala kulmayaan iska caabin xoog leh. arrimaha Ruushka iyo Ukraine ayaynu wali ku guda jirnaayay. dawladda Belarus ayaa waxa ay sheegtay inay diyaarisay goob lagu martigelinayo wadahadal u dhaxeeya wufuud ka kala socota Ukraine iyo Ruushka iyadoo duulaanka maamulka Moscow uu ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine uu galay maalintiisii shanaad. dawladda Ukraine ayaa ogolaatay inay diblomaasiyiin u dirto meel u dhow xuduudda Ukraine iyo Belarus inkastoo ay jiraan warar sheegaya in kaligii taliyaha dalkaasi Alexander Lukashenko uu diyaariyay ciidamo ku biira duulaanka lagu qaaday dalkaasi Ukraine. goobta uu ka dhacayo wadahadalada Ukraine iyo Russia waa la diyaariyay waxa la filayaa imaanshaha wufuud ayaa lagu qoray bogga ay baraha bulshada ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Belarus iyadoo ay warbixintu la socotay sawirka miiska dheer oo ay ku xardhan yihiin calaamada Ruushka iyo Ukraine. Anatoly Glass oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Belarus ayaa waxa uu yiri wadahadaladu waxay bilaaban doonaan isla markaana dhammaan wufuudda ay yimaadaan goobta kulanka. dawladda Ukraine ayaa tilmaantay in kulanka aanay wax natiijo ah ka soo bixi doonin waxaana madaxweyne Volodymyr Zelensky uu isna sheegay inuusan filanaynin in wadahadaladu ay ka soo baxayaan natiijo wax ku oolahay. sida had iyo jeer dhacda runtii ma rumaysnin natiijada shirkani laakiin ha isku dayaan ayuu yiri Volodymyr Zelensky hogaamiye Ukraine. xaaladda dalka Ukraine ayaa wali aad u qasan waxaana dagaalka uu galay maalintii shanaad oo xiriir ah kaasoo noqday mid ay si weyn isha ugu hayso dunida oo dhan. dhinaca kalena qiimaha lacagta Ruushka ee raabalka la yiraahdo ayaa isniinta maanta hoobatay marka loo eego dollarka iyo euro ee suuqa sarifka lacagaha ee magaalada Moscow xilli reer galbeedku ay Moscow ku ciqaabeen xayiraado dhaqaale oo ka dhashay duulaanka ay ku qaaday dalka Ukraine. qiimaha raabalka ayaa waxa uu maanta gaaray 100.96 halkii dollarba halka ay markii hore ka ahayd 83.5 arbacadii aynu ka soo gudubnay maalin ka hor duulaanka Ukraine. sidoo kale halkii euro ayaa waxa lagu sarifayay 113.52 raabal halka ay ka hor weerarka ka ahayd 93.5. qiimo dhacan ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii reer galbeedku ay ku dhawaaqeen in ay qaar kamid ah bangiyada Ruushka ay ka saari doonaan nidaamka SWIFT ee isku xira isla markaana ay lacagaha isugu diraan bangiyada caalamka. raabalka ayaa markii horeba si weyn hoos ugu dhacay marka loo eego lacagaha waaweyn ee caalamka kadib markii dadka Ruushka
ay safaf dhaadheer u galeen ATM-yada si ay lacagahooda ugala baxaan isla markaana ugu bedeshaan lacago shisheeye ka hor inta aanu ku dhicin qiimo dhac kale. bangiga dhexe ee Russia ayaa isniinta maanta ah la sheegay in uu qaaday tallaabooyin degdeg ah oo lagu xoojinayo dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin in heerka dulsaarka sare loo qaado 20% halkii markii hore uu ka ahaa 9.5% si loo taageero xasiloonida maaliyadda iyo qiimaha loogana hortago qiimo dhac ku yimaada kaydka lacageed ee shacabka. bangiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in shirkadaha Russia ee dakhliga uu ka soo galo wax dhoofinta ay qasab tahay in 80% iibiyaan dakhliga ka soo galay lacagaha qalaad. dagaalka u dhaxeeya ciidamada difaaca Ukraine iyo militariga Russia ayaa dhaliyay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray labada dhinac iyo sidoo kale dad shacab ah. dowladda Ukraine ayaa shaacisay in khasaare badan oo dhimasho ah ay gaarsiiyeen ciidamada Ruushka ee soo weeraray. waxa ay sidoo kale shaaciyeen in diyaarado dagaal ay soo rideen iyo khasaare kale oo military. Russia ayaa markii ugu horeysay waxa iyadu qiratay khasaare uu ka soo gaaray duulaanka ay ku qaadeen dalka Ukraine, waxayna dowladda Ruushku ku gaabsatay inay si rasmi ah markaasi u shaaciso tirada rasmiga ah askarta looga dilay dagaalka iyo kuwa looga dhaawacay. wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in khasaaro dhimasho iyo mid dhaawac ka soo gaaray howlgalka khaaska ah ay ka fuliyeen Ukraine. waxa ayna wasaaraddu sheegtay in khasaaraha dhankooda soo gaaray uu ka yar yahay inta gaadhay ciidanka Ukraine. waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray militariga Ruushka intii uu socday howlgalka khaaska ah. khasaaraha soo gaaray ciidanka Russia waxa uu dhowr jeer ka yar yahay tirada khasaaraha ee gaadhay kuwa qarandoonka ah ee la burburiyay ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda difaaca dalka Ruushka. dhinaca kale ciidamada dowladda Belarus ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay gantaalo culus ku garaaceen dhinaca Ukraine, waxaana gantaaladan ku dhaceen magaalooyin ku yaala dalka Ukraine sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalkaasi. dowladda Belarus ayaa dagaalka ku gacan siinaysa ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday dalka Ukraine, waxaana weerarkan uu imaanaya xilli lagu waday in saraakiil ka tirsan Ruushka iyo Ukraine ay ku kulmaan xadka u dhaxeeya dalalka Belarus iyo Ukraine.